dhibaataa lagu qabay adiga iska dhaaf gaadiid la wada iska dhaaf ninka lugaynaa hor raba oo sokorta qaba oo la yiri BT sameeyo orod sameeyo xitaa ku jabi jiray Rahmaan Rahiim magacay waxa la yiraahdaa Cadaawo Kanaaca Boofiyeen waxaan ahay ninka magaalada Kanaacada ka boofiyo dadka waa qadmano waaba dadka qashin ku soo in la xir waa sharci in la xir in la ganax waa sharci qofka sharci ku soo qashin iska dhaaf biyo wasaq qofka ku soo waa in la xiro laamiga nadaafada in laga ilaaliyo waa sida nadaafada iska ilaalinaysa laamiga waa ilaaliyo xilliga hore ma artay aad u burbursanay oo ma artay magaalada Beledweyne hadii hataa diishka dalooyinka ka firsan tan magaalo ma aha la jariba hadda magaalo way kaat walaalayaalo dhulkeena aneersaneedisay akula dhiseedisay awala dhiseedisay dhisa dhulka dhisa waa magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan waxa uu la socda isla markaana heer gabagaba ah ku dhow dhismaha ama dayactirka lagu sameeyo wadada laamiga ah ee dhaxmarta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne isla markaana xarumaha ganacsi ku leh hareeraha wadada laamiga ah ee dhaxmarta magaalada ayaa si aad ah u soo dhaweeyay dhismaha ama dayactirka lagu sameeyo wadada laamiga ah ayagoona u mahad celiyay kambaniga Sahel ee wada hawsha dhismaha ama dayactirka wadada laamiga ah ee dhaxmarta magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan iyo cid kasta oo gacan ka geysatay in dayactir lagu sameeyo wadada laamiga ee dhaxmarta magaalada oo aan wax dayactir hirin tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee dalka waxaana ay fariin u direen qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne qaybaha kala duwan ee bulshada ee ganacsiyada kala duwan ku leh hareeraha wadada laamiga ah maamulka gobolka iyo kan degmada oo ay ugu baaqeen in si wada jir ah loo ilaaliyo bilicda iyo nadaafadda wadada laamiga ee dhaxmarta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qof kastana uu xil iska saaro sidii looga ilaalin lahaa wadadan waxyaabaha keeni kara burburka wadada dhaxmarta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana hadalladoodii ka mid ah magacaygu waa Cilmi Cabdulla Cadow ku magac dheer Cimiloos waxaan maanta farxad weyn oo ah daanahay reer Beledweyne muddo 50 iyo 5 sano ilaa 60 sano ka hor 1935 ayaa ugu dambeysay laami la soo mariyo degmada Beledweyne gudaheeda iyo hareeraheeda ilaaha mahad leh 55 sano ka hor waxa maanta noo suurowday inaan laami aad iyo aad u qiimo badan naloo ku sameeyo degmada Beledweyne waa ilaahay mahadiis mahadu ha ka gaarto ciddii gacan ka geysatay ama taladaan lahayd mahad ha ka gaarto waxaan la dardaarmayaa reer Beledweyne inay ilaashadaan hantidooda oo ka mid yahay laamiga waxaan u sheegayaa shacabka Beledweyne inay ilaashadaan oo ay ka ilaaliyaan biyaha lagu shubaa laamiga wuxuu sababayaa burbur laamiga waxaan ka codsanaynaa dadweynaha in laga ilaaliyo biyaha wasaqda ee lagu soo daynayo waxa kaloon ka codsanaynaa biyahan waa kuwan dacda biyaha bacaha maryaha istiraashooyinka shacabka laamiga hareerihiisa degan waxaan ugu baaqayaa inay samaystaan fuustooyin lagu guro qashinka waxa la rabaa qof kastoo reer Beledweyne inuu isxilqaamo oo isku xilqaamo hantidiisa inuu ilaashado haddaadan hantidaada ilaashad cid ku ilaalimayso waa nasiib ilaahayna siiyay laamiga marka waa inaan ka ilaashanaa waxyaabaha sababaya inuu burburo oo burbur keeno intaas waxaan leeyahay shacabka Beledweyne midda kale maamulka waxaan leeyahay tabeelooyina loo sameeyay laamiga darawaliinta baabuurta wadaaho oo dadka hadda soo kacaya ma yaqaaniin wada marista iyo nidaamka wadooyinka loo maro ma yaqaaniin laamiga waxaan ka codsanaynaa in nimanka gacanta ku haya inay tabeelo suraan
tabeellahaasoo tilmaamaya magaalada gudaheeda kiiloomitir 20 kiiloomitir 20 kiiloomitirka 20 ka badan inaanan lagu mari karin laamiga 20 kiiloomitir 20 ka badan darawalkii ku marana in la ganaaxo taas waxay saaran tahay mas'uuliyaddeedu dawladday saaran tahay waxay saaran tahay taraafiiga iskale in tabeellooyin la suro oo askari jiifa la dhigo qatar waay laamigana waa qatar darawaliinta hadda baabuurta wadaana khibrad male wadamaris ma yaqaaniin halis uu leeyahay laamigu inkastoo horumar uu yahay haddana halistiisa uu leeyahay nimanka farsamo yaqaanada ah hawsha wada waxaan ka codsanaynaa iyagana inay askari jiifa dhigaan iskuulaadka meelaha iskuulaadka oo ay ardadu ka soo baxayso iskuulaadka waxaan ka codsanaynaa inay dhigaan askari jiifa in la dhigo iskuulaadka meesha ardadu iskuulaadka uga soo baxdo midda kaloon rabno waxa waaye isbitaalka iskuulaadka intaasba in askari jiifa la dhigo meelaha dadweynuhu u badan yihiin saasaan haddii alla kuu idma nimanka farsamada haayana aan ugu baaqaya waxaan leeyahay hambalyo waa ku faraxsannahay dhammaanteen haddaan nahay reer beledweyne horumarka gobolka ka socda aad iyo aad aan ugu faraxsannahay hadda wuxuu gaaray 6 kiiloomitir waxaan rajaynaynaa in ilaa iyo xamarna oo ilaahay mar noo suurto geli doono insha Allah oon xamar ku gaari doono muqdisho muddo 6 saacadooda sidii horey baan ugu gaari jirnay haddii alla idmo marshabiyeedii waxaan rajaynaynaa haddaan ganacsatanahay intaan waa bilow waana loo ku deeqay inaan annaguna jaabkeenna qufnaan u sheegaynaa ganacsatada si aan u saarana marshabiyeed laami aan marshabiyeed lahayn ma cimrinaayo marka haddaan ganacsatanahay reer beledweyne marshabiyeediga labada dhinaca ma badna baqaylnimada intaan iska dhaafnaan jaabka furno intaasna ganacsatadaan kula dardaarmaya bismillaah waxaan alla uga mahad celinaynaa bilowga fiican ee horumarka iyo ishaag iyo diilada laamigan dhismaha laamiga ka socota magaalada beledweyne Allah ayaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan alla uga rajaynaynaa ijri inay ka helaan intii gacan ka geysatay waa bilow fiican laakiin kuma filna baahidii ma dabooli karo waxaan rajaynaynaa inay bilow ahaatay intii u dambaysay aysan noqon si fiican oo wuxuu wadaa kambaniga Astaahil wuxuu mudan yahay abaalmarin uu mudan yahay waa dad horumarkii ka shaqeeyay oo shilinka u soo haraafeeyno wax weyn ka qabtay waxaan rajaynaynaa idanka Ilaahay inay cid alaala cid gacan ka geysan kartaana ay sii wado oo ilaa janta la geeyo ama aeroboorka anigoo ah Ibraahim Maxamed Waay waxaan ka hadlayaa aragtidayda ku aadan wadada la dhisay oo noo dhisay kambaniga Astaahil alxamdulillah meeshii shalay boorka iyo dhiiqadu ay naga soo gaarayeen waxaan helnay wado wanaagsan ilaahay baa mahad iska leh marka labaad kambaniga Astaahil iyo ragga hawsha noo soo qabtay aadaan ugu hambalyeynaa soo dhawaada wax badan ay noo taraysaa waxaan leeyahay horumarada inta dhimanna hana loo dhameystiro kolba ragga meelaha faraha gali yaqaan wax ka soo qaadi yaqaan hanoo aadaano haday maamul tahay haday rag kambaniya tahay alxamdulillah inta dhimanna noo dhameystira rayn iyo jawi farxad leh iyo duco intaba waad naga helaysaan rahmaan rahiim magacay waxa la yiraahdaa cadaawo kanaaca boofiyana waxaan ahay ninka magaalada kanaacada ka boofiyo laakiin laamiga horta maartay magaalada bilacdeeda horta hadda la sameeyay marka run la sheego magaalada bilacdeeda waxa wado xaafadaha noqoto waa wado magaalada bilacdeeda haday wadada ka haleysantay taas magaalo lama yiraahdo waayo waxay la mid tahay magaalo oo basiba ay noqonaysaa haday magaalada laami ay lahayn waa wado oo basiba waayo laamiga siyaad bare kadib burburkii siyaad bare wixii ka dhacay laamiga waxdan ma lahan oo sida hadda lagu shaqeeyo oo shaqeysan ma lahan waa laamiga wuxuu la mid yahay shiinaha u dhisay oo la mid yahay laamiga shiinaha u dhisay ayuu la mid yahay waxaan kala dardaarmaynaa marka dadka baabuurta wado bijaajka iyo baabuurta dadka wado waa in sharci ay yeeshaan dadka waa qadmanuuc waaba dadka qashin ku shubaa in la xiro waa sharci in la xiro in la ganaxo waa sharci qofka sharci ku shubaa qashin ka dhaaf biyo wasaq qofka ku shubo waa in la xiro soo ma garan laakiin beledweyne haday noqoto aniga horteeda irdu ku taala waa iskaga shubaya laamigina waa ku dhisan yahay wasaqna waa ku seeri war laamiga wuxuu la mid yahay jaarka aad qabtido amal la mid yahay in aad dhowrtid wixii wasaq aad ka qaadid wixii qashin aad ka duudid laakiin dad tira waa iskaga shubaya nadaafad darro nadaafada in la ilaaliyo laamiga nadaafada in laga ilaaliyo waa sida aad nadaafada iskaga ilaalinaysid laamiga waa ilaali gurigaad hortiisa xilligii hore ma artay aad u burbursanay waa ma artay magaalada beledweyne haddii hataa diishka dhalooyinka ka firsan tan magaalo ma aha la jariba hadda magaalo way kaat
hadda magaalo way ka markii hore maxay ahayd gobolka Hiiraan waa central waa habartii Soomaali gobolka Hiiraan habar iyo aabo waaye gobolka Hiiraan xagee Kismaayo Kenya kii baawr ka yimaado Hiiraan Soomaaliya kii raas caseer iyo raas kabooli kii ka yimaado Hiiraan Soomaaliya meelkan ma marka been yaa sheekara waa in laamiga la tixgeliya hadda laamiga loo sameeyay wuxuu noqday magaalo dalooyinka adduunka hadda laga fiirsado xalay wallahi magaalada beledweyne waa dhisay laakiin hadda anaga aan wasaqayno aan qodqodno aan wasaq ku daadino ma laga faa'iido wax laga faa'iido ma leh hal bacad lagu lisay laakiin waa u jeedeen laamiga qurux badan yahay si fiican oo loo dhisay waa u mahad celinaynaa qolada istaahil oo laamiga aan ka qaadatay qadaraas ku soo qaadatay iyo qolada asas oo qadaraas soo dhiibtay maadaama aan qaracsada aagana aan nahay waxaan ka codsanayaa in mas'uuliyiinta dadka isku taagalaan ay dhistaan mas'uuliyiinta biyo ay mari lahayn lagana shaqeeyo oo wadada qaabka loo mari lahay qaabka baawarta nimanka baawarta wato ku eriya oo dadka halista gelina ay tartiib u wadaan dadka ganacsatada aaga ay deganayeen si fiican ay marshaboodiska u dhistaan ay ka qayb qaataan marshaboodiska meeshii biyo ay mari lahaayeen maadaama ay ugu jirin qolada istaahil oo dhisayso laamigan waxaan codsanayaa dadka reer Hiiraan oo qaasatan reer beledweyne inay dhistaan ay ka qayb qaataan sida ay marshaboodiska u dhisa lahaayeen magacayga anigoo ah Cabdalla Xasan Xuseen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kambaniga istaahil oo ugu horeysay magaalada beledweyne wada laga dhisayo kambaniga ugu horeeyo dhisay aad ayaan ugu faraxsanahay haddaan nahay dadweynaha ku nool magaalada beledweyne farxad weyn ayay inoo tahay laamigii oo muddo ilaa iyo 40 sano ka hor ugu dambeysay dhismo ay ka bilowdo kambaniga istaahil waa kambaniga ugu horeeyay ee magaalada beledweyne shaqo la muuqato ka qabta magaalada waana ku hambalyeynaa farxad weyn ay inoo tahay waa wax weyn waaye magaaladani laamigeedu wuxuu ahay waa la garan karay ummadda joogto farxadanna waxaa iska leh ma hadda ilaahay iska leh ka sokow istaahil ayaa iska leh wax qabadka istaahil ha noolaato waxaan soo koobay dhibaatooyinka baabuurtii oo wada halaawdo wadadii oo raf ah mideeda kalentood waxaa jirtay shilkii oo joogto ahay alxamdulillah sidii hore wax shaqo isku leeyihiin ma laha magacaygu Shacaab Xasan Cilmi maanta waxaan ii sheegayaa farxadda in reer beledweyne oo la qaybsanaya waayo aan maanta dhalinyaro gobolka Hiiraan ka tirsan oo kambani samaysteen kambanigaas oo noo soo dhiseen magaalada bilicdeeda waayo magaalada bilicdeeda waxa ah laamigo kale iyo meelo lamid ah sida elboorada kale waayo horumarkii aan maanta tiigsanay oo koowaad waa taaganahay laami dhisidii horumar kale oo ka duwan inaan heli doono waxaan ka filanaynaa kambaniga istaahil marka waxaa leeyahay horumarkiina iyana gadaal u dhicin waayo dadaal haddii la sameeyo dadaal kalena lagu dari karaa marka aniga waxaa leeyahay fikrad ahaan waa quruxda magaalada waayo magaalo aanan lahayn laami waa dhibaato waayo awlkor waxaa arki jirnay aqawalad oo ah laamiyo oo god ah oo biyo ku jiraan waayo hadda laamigii biyo kuma jiro gaarigii si istirax u maraa dadkina si istirax waayo adoo labisan oo iskuul socdo sida dhalinyarada iskuulka markay aadaan laamiyada markay maraan ay gooynayaan baabuura dhiiqo ku haleyn karto waayo ardaygii asigoona labisnayn oo ka bacdi xisada bilaabanaya waayo dhowr kambanigaas dhowr walxaato naga saaciday sida ardaydii waa u saaciday waayo wuxuu ka celiyay dhiiqadii badneed oo laamiyada markay gooynayaan iskuulada aadayaan ay ku halaabi jirtay ana horta si saa'ide waa ugu hambalyeynaya